siyaasi Cabdilaahi Darawal oo kamid ah siyaasiyiinta waaweyn ee reer Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay khilaafka ka soo cusboonaaday gudaha xisbiga Kulmiye. arrinkan Kulmiye dad baa wax weyn ka dhigay aanu Kulmiye arrinkan ka dhaxdhacay oo ma arko wax imika inoogu horeysa fiye hore ka horeeyay xisbiyaduna runtii maaha xisbiyad dadku wada leeyahay maaha markaan runtii isu sheegno meena gaadhin waan ku soconaa oo udubtii aanu asaasiyoshooda ka mid ahayn anaba tii barigiil naga hor joogso la gelmis wax dhibaatayna ma dhaceen ninka wasiirka ayna muumiseen waati wadan laga saaray la yiri hor adiga lagu baanay mid kala la helay waati laga cay waa caadi kuwana hadii imika qaar la yiri dee war iska taga laydima baanay anigu ma arko wax cusub oo inagu soo kordhayo meesha waxa weeyaan inagii baan wali xisbiye yeelan marka xisbiyadeena maaha kuwa dad isku fakir ideology kuma kala duwana waxay ku kala duwan yihiin ma jirto waa kursigaas uun si loo fuulayo ay ku kala duwan yihiin marka xisbiyadu ay leeyihiin wax ay ku kala duwan yihiin amba dad wada aaminsan ay xisbigooda leeyihiin ayuu dee xisbigooda leeyahay noqdo ee kharashka ku baxaya la qaybsanayo subscription la bixinayo markaasuu dee xisbiga laakiin xisbi ninkeliya intuu samaystay kharashkiisana reerkiisu bixinayo dee isagaa leh ma Faysal bal laga qaado ilaa 2002 ba haystay yaa ka qaadaya maxaa loo qaadaya isagaa leh marka waxa weeyaan waynu ku soconnaa xisbiyaha hagaagsan oo dadku wada leeyahay laakiin mar walba inta madaxda joogto markaa ayaa waajib ay ku tahay inay dariiqay ku samaysmayaan ay raacaan geesta kale siyaasi Cabdilaahi Darawal waxa uu ka hadlay heshiiska xisbiyada iyo arrimaha doorashooyinka isagoo arrintaasina daliil u soo jeediyay xisbiyada mucaaradka ah heshiiska oo keeno ka doonaynay in heshiis galaan oo mar uun ay heshiiyaan oo doorasho inoo qabtaan aynu dhowr iyo 10 sano ka doonaynay laakiin markaad eegto waxay qorshaysteen iyo heshiiskay galeen dee ma waafaqsana in dadka loo danaynayo amba sharciga dalka loo danaynayo ma waafaqsana sababtoo waxa weeye xisbiyada qaranka waqtigoodu waa 10 sano waxa siinaya law number 14 ayaa siinaya 10 sano oo marba ururada la furaya oo law number 14 ba sheegaya ururada waqtiga la furayaana waa 6 bilood ka hor waqtiga dhamaadka 26 December ayaa lagu dhawaaqay inay xisbiye yihiin sharciga 2012 26 December 2022 ayaa tigirkooda ku eegay waxa la rabaa markaa 6 bilood ka hor June 2022 in ururada la furo oo 6 bilood la sii tartamo iyaguna imika waxa qorshaysteen waxa sharcigu wuxuu sheegayaa ururadu waxa ku tartamayaan ay ku soo kala baxayaan doorashada deegaanka sida uu kala helaan iyaguna waxa qorshaysteen sida imika iyaga iyo commissionku ay isla dhigeen 2022 dabeeqadiisa inay doorashadu qabsoomi kartaba haday doorashada la yiraahdo la qabanaya macnaheedu marka intee u dhaxaysa June 22 iyo dhamaadka 2021 doorashadii la qaban kari waayay 9 sano ay joogeen iyadoo hal sano wax ka yar bil ay ka hadhay teeramkoodii inay yiraahdaan qabanaynaa de maxaa ku jira timir la ku jirtay waliba dadku de way wareersan oo waliba xisbiyada mucaaradka inay ka jawaabaan bal marka la gaaro 22 marka la gaaro tigirkiinu dhamaado maxaa la sameeynaa maxaa noqonaysaa idinku ma ururo waxay jiibinaysaan cusub ma qodobkii yaraa ee 83 guurtida haysay shaabada ujeedadiisiiba laga leexiyay nin walo shaqadiisii qabsan waaya aba uu ku dhufsan jiray ba ku dhufsanaysaan dadku waxay doonayaan in la qanayo halka shaki baa ku jira heshiiskiinu waxaan u aragnaa inuu ka dhex aragteen common interest idin wada faa'iido taasi waa taa dadku cadeyn bay u baahan yihiin waliba xisbiyada mucaaradka ah xisbi ruling party isagu juuq oran maayo laakiin xisbiyada mucaaradkii waa inay sheegaan bal waxa markay waqti tigirkoodu dhamaado waxay noqonayaan ilaa waa kuwan diiday dariiqii loo mari lahaa in ururo lagu furo iyaga iyo ururada ay tartamaan
dee ha sheegeen dadka ha u sheegeen talabaad waxa weeyaan sharciyaddeenna waxaad moodaa inay jaantaa rogantoo nin walba suu doono uu dhiganayo waxaan yaro milacsaday sharcigan imanka doorashada ee baarlamaanka horyaalla qodobkiisa 6 wuxuu sheegayaa oo runtii aan la yaabay wuxuu sheegayaa komishanka doorashadu haddii doorashada deegaanku ay waqtigeedii ku dhici kari weydo sababo kasta ahaatee komishanka doorashooyinka oo la tashanaya xisbiyada qaranka ayaa u kordhinaya waa unconstitutional way constitutionkeena cidda keliyu siiyey inay wax kordhiyaan waa guurta in golayaashii qarankee la doortay ay inamada yaryar ee la magacaabay komishanku ay u kordhiyaan dee wax meesha ku jira maaha waa marin habaabin weyn anu waxaan qabaa taasi haddii u suuro gashana in la arki doono inay iman doonaan golayaal iyo madaxweyneyaal iyagu isu kordhiya in la helay dee haddaan sharcigii cidi ilaashanayn oon cidi ilaalinayn dee nin walba siduu doono u dhigan war dee dadku iskama aamusnee waxa weeyaan waa laydin ixtiraamayaa food bay idin siiyeen 3diina ururba xisbiba way idin ixtiraamayaan ina ixtiraamtaan oo wuxu sheegtaan oo qanacsan ayaa loo baahan yahay arrimahaas mugdi weyn baa ku jira dad badan oo danaynayana way jiraanoo dee sharciga la jiiraya arkaya ugu dambayntiina waxa uu tacsi u diray 2 marxuun oo runtii rag waaweyn ahaa oo wadankana qiimo weyn ku lahaa oo shalay iyo daraad la kala aasay hargeysa lagu aasay waa marxuum siyaasi cali sandulle iyo marxuum suldaan cismaan cali kooshin waxaan ilaahay uga baryayaa inuu jannadiisa ka waraabiyo wax badan bay soo qabteen ay dadkooda u soo qabteen iyo dalkooda ehelkooda iyo reer Somaliland oo dhanna iyo saaxiibadoodna in ilaahay samariye ma ka siiyo cali fahad sab tv hargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa telesom